dastuurka sidee wax kale iyadoo loo dhamaystiri karo dastuurka iyadoo weliba maxaa la dhahaa tixgelinayo maamul goboleedyada ka jira waddanka soo dhowo muddadaas 9 sano waxaa ku baxday lacagta ugu badneed oo aad ku baxday markaan u istaagno ama aan dul istaagno in la istiriiko ama la istiriyaadida waxaa diidan amniga diidan number 1 oo tirakoob dalku 1990 markaan dowladda dhex burbureysay 9 iyo 2 degmo ah degmo kasta in la tirakoobo maanta adiga aqalka maskaxda geli degmooyinka horeysan iyo kuwa cadowga haysto iyo kuwa siyaasiyan ama siyaasad ahaan u maqan kuwa cadowga haysto iyo kuwa siyaasad ahaan u maqan marka isku daro lambarka ay leeyihiin qof kastoo halkaan fayaya waa qiyaasi kalmadoobe xaqu waxay u leeyihiin in la tiro marka koowaad waxaa hortaagan amniga dalka in guud ahaan jamhuuriyadda federaalka oo soomaaliya oo dhan naafadu wax baratay dastuurka xaq ma u leh miya wax ma dooran karaa miya ma la dooran kara miya taas su-aashaas adiga kugu laabanaysa su-aasha adiga kugu laabanaysa waxay tahay dowlad goboleedyadu dastuurku ama heshiiska qaran ay samaysteen ma muddo kordhin bay samaysteen ma sax wax kale samaysteen midda kale absi weydiin oo ka tahay maqaamka muqdisho haddii la dhaha 30 juun dowladdeegaana la dooranaa maqaamka muqdisho halkuu jiraa dhalinyarada naafad golaha deegaanka ma ka mid yihiin xisbiyada labada xisbi nooca xisbiyada naafada ay ku biiri karaan noocee waay tirada loo golaa noocee waay gamaadiid adiga waxaan weydiinayaa muddo 12 sano waa la dhahay adiga xildhibaano badana tihiin markii doorashada maxaa jeceshiin in xildhibaan reerkiisu 9 jeer iskaga soo laabto sanadkan caawina waxa qisaarna hadda tusaale ahaan soo jeedinta golaha wadatashiga qaran ee nooca doorashada matalaada isku dheelitiran liiska xiran iyo matalaana halka deegaan doorasho waxyaabaha ugu weyn oo faa'iidada u leeyahay waxay tahay waxaa lagu ilaalin karaa xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba naafada ah ayaa lagu ilaalin karaa haddii xisbiga waa inuu ku qasbanaadaa oo xeer nidaamye iyo nidaamku ku qasbaa in uu ilaaliyo dadka mataqaana maxay ahayd hore gaarka ah oo xuquuqaad gaar ah uu sharcigu u siin karo marka nidaamkeena doorashada la soo jeediyey aan rajeynayno insha allah golaha shacabka iyo aqalka sare inay noo ansixiyaan ayaa wuxuu damaanad qaadayaa matalaada dadka mataqaana adinka aad wax siyaasadeed maaha